أحبك حيل وخلص الليل أفكر فيك حبيبا. qisadani waa dhab waxayna dhex martay Fatima iyo wiil lagu magacaabo Ilyas oo markii hore la oran jiray Liyaanka oo ah lamaana ka soo kala jeeda dalalka Nigeria iyo dalka Shiinaha. qisadani jacayl Ilyas iyo Fatima ayaa ku bilaabatay si cajiib ah waxayna iska barteen markoodii ugu horeysay aalada ay bulshadu ku xiriirto ee internetka. haddaba Ilyas oo la hadlaya wakaalada wararka ee dalkaasi Shiinaha ee la yiraahdo Xinhua ayaa yiri waxay ahayd Fatima qofka kaliya ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee Facebook aynu saaxiibaha ka ahayn. waxayna ahayd buu yiri sida dayaxa oo kale mid ka dhex ifta asxaabtayda. waxaan bilaabay buu yiri inaan ka faaloodo sawiradeeda quruxda badan ee ay soo dhigtay Facebook-ga. anigoo waxaan arkay buu yiri sugila inta ay muuqaal ku saabsan soo daabacayso. kadibna waxaan go'aansaday buu yiri inaan si toos ah ula xiriiro. haddaba xiriirkii ka bilowday internetka ayaa isku bedelay markuu jacayl isaga kala gooshay kumanaan mayl markii dambena biyo dhigiisa uu noqday guur. waa tabintii shaacir. haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha ku xirnaaw oo subscribe saar page-kan cusub ee aayaha nolosha TV. inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka go'in xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya. jacaylku waa beer abuurkeedu yahay run waraabkeeduna yahay kalsooni iyo in loo hagar baxo miraha ama dalaga ka soo baxana waa guur. Fatima oo ahayd arday maadada caafimaadka ah ka diyaarinaysa xilligaas jaamacad ku taala magaalada Abuja ee dalkaasi Nigeria ayaa iyana tiri Ilyas muddo yar oo kooban ayuu kaga mid noqday asxaabtayda qaaska ah. inta kaliya ma ahan ee xitaa waxa uu noqday bay tiri qayb ka mid ah jirkayga. marna isma lahayn bay tiri in xiriirkeena ka bilowday aaladan uu saameyntan yeelan karo laakiin tani waa qayb ka mid ah bay tiri mucjisooyinka jacaylka. haddaba lamaanahani da'da yar ayaa caqabadihii ka hor yimid waxaa ka mid ahaa maadaama ay kala diimo iyo dhaqan ahaayeen ayna suurtagal ahayn inay isguursadaan. Fatima ayaana u soo jeedisay gacaliyaheeda inuu marka hore qaato diinta islaamka iyadoo macluumaad badanna ka siisay kadibna uu u soo doonto qoyskeeda siduu yahay dhaqanka islaamku. Ilyas ayaa baaritaan kadib iyo baxthi uu ku sameeyay diinta xaqa ah ee islaamka wuxuu ku qancay inuu qaato diinteena suuban walow ay jireen culaysyo badan oo kaga imaanaya dhanka iyo waalidkiisa. ugu dambeynna wuxuu bilaabay inuu u ruqaansado dhanka iyo halkii ay ku nooleed gabadha bedeshay noloshiisa ee Fatima. isaga iyo qaar ka mid ah qoyskiisa ayaana ka degay magaalada Abuja oo ahayd halkii ay ku nooleed gacalisadiisa. waxaana airportka ku sugayay Fatima iyo ehelkeeda oo sare u siday ubax iyo caleemo qoyan. Fatima oo cabiraysa dareenkeeda maalinka ayaa u sheegtay wakaalada wararka ee Xinhua waan isku dayay inaan xakameeyo shucuurteeda maalinka laakiin waan kari waayay. farxad ayaan la ooyay waan aamini kari waayay waxay ahayd bay tiri riyo aan muddo sugaynay. ugu dambeynna dhawaan ayaa Fatima iyo Ilyas arooskoodu wuxuu ka dhacay dalkaasi Nigeria waxaana la arkay wiilka iyo gabadha oo labisan dharka hidaha iyo dhaqanka ee uu caanka ku yahay gobolka ay gabadhu ka soo jeedo iyagoo maalmo kadibna arooskooda u boqolay dhanka iyo cariga Shiinaha halka oo ay uga bilaabatay nolol cusub. haddaba jacaylku ma lahan midab maal da iyo xuduud xakamaysa. jacaylku waa dareen qofka ku hogaansha nolol xasuuso kala duwan ku reebta qalbigiisa. أحبك حيل وخلص الليل أفكر فيك حبيبا. أبيك اليوم تحس فيني تكلمني تصالحني ما أقدر على فراقك أموت أنا